daawadayaal ku soo dhawaada warbixin kooban oo aanu idinku soo koobnay buugga laga qoray beegsiga madaxda ee beesha Subeer Awal ee xukuumadda Ciro ee laamaha dawladda. xog ururinta wejiga hore waxay ku kooban tahay 100 cisho ee u horeeya oo ka bilaabmaysa 14 bisha Disembar sanada 2024 ilaa 23 bisha Maarch ee sanada 2025. beegsiga madaxda iyo shaqaalaha hay'adaha kala duwan ee dawladda, dheeliga waxqabadka dawladda iyo la dagaalanka ilaha dhaqaale iyo ganacsi ee beesha. saddexdaasi qodob ayay koobsanaysaa warbixinteenani. baadhid waxa la eriyay 100kii cisho ee u horeeyay ee xukuumadda Ciro, 25 la taliye, 13 agaasimo waaxeed, 75 shaqaale aan helin xuquuqdoodii iyo 3 madaxda safaaradaha ama diblomaasiyiina oo iyagana shaqada laga eriyay. waana 3 mas'uul, 10 shaqaalaha mashaariicda ee la eriyay iyo madax kale. wadarta guud ee la eriyayna waxay isku noqonaysaa 126 qof. aynu ku bilowno madaxtooyada. wasaaradda madaxtooyada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa la eriyay 2 agaasimo waaxeed iyo 4 shaqaale kale ah. madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland waa muraayadda qaranka, ma joogo hal agaasimo waaxeed oo ka soo jeeda beesha Subeer Awal. jaantuskan idin muuqda waa xukuumaddii madaxweyne Biixi. madaxtooyadu waxay lahayd 11 agaasimo waaxeed, 2 waxaa lahayd beesha Subeer Awal, 2 waxaa lahayd beesha Garxajis, 2 Samaroona iyo 2 habar jeclaa. 3 hadhayna beelaha kale ayaa kala lahaa. wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah waxaa la eriyay 1 agaasimo waaxeed, 3 la taliye iyo 3 madax safaaradeed ah. wasaaradda macdanta iyo tamarta waxaa la eriyay 1 agaasimo waaxeed, 2 la taliye iyo 3 shaqaale oo aan helin mushaharkii ay xaq u lahaayeen. wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo wacyigelinta 1 agaasimo waaxeed, 1 la taliye, 2 mas'uuliyiin kale ah, 1 shaqaale aan helin mushaharkii uu xaq u lahaa. wasaaradda waxbarashada iyo sayniska 3 la taliye iyo 19 shaqaale aan helin mushaharkii. wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada 2 agaasimo waaxeed. wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha 1 agaasimo waaxeed. wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska 2 agaasimo waaxeed iyo 1 la taliye. wasaaradda horumarinta caafimaadka 3 la taliye iyo 1 madax kale ah. wasaaradda howlaha guud, dhulka iyo guryeynta 2 agaasimo waaxeed. wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda 1 la taliye. wasaaradda dibudejinta, hanti dhowraha wasaaradda. wasaaradda cadaaladda 2 shaqaale aan helin mushaharkii ay xaq u lahaayeen. wasaaradda horumarinta beeraha 32 shaqaale aan helin mushaharkii ay xaq u lahaayeen. wasaaradda gaashaandhigga iyo difaaca 1 la taliye. wasaaradda dawladaha hoose 6 shaqaale aan helin mushaharka. wasaaradda horumarinta maaliyadda 1 xisaabiye ku-xigeenkii guud. wasaaradda biyaha 1 agaasimo waaxeed, 2 la taliye iyo 1 shaqaalaha mashaariicda hay'adaha ah. hay'adda horumarinta wadooyinka 4 la taliye. baanka dhexe 4 la taliye. Economic Zone Authority ama aaga cashuuraha ka caagan 12 shaqaale aan helin mushaharka. qodobada kale aan iyaguna xusi karno waxaa ka mid ah 100ka cisho inta la bedelayay la taliyayaasha wasaaradaha ma jiro 1 la taliye oo beeshani ah oo la qoray. dhammaan shaqaalahan la beegsaday waxay mareen nidaamkii saxda ahaa ee hay'adda shaqaalaha dawladda, manay ahayn shaqaale ku meel gaadha oo joogay wasaaradaha ee waxay ahaayeen shaqaale rasmiya. haddii 100kii cisho intaasi dhaceen, maxaad filaysaa 5 sano ee soo socota?